بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta oo ah maalin axad ah taariikhdana tahay 18 bisha Juun sanadka 2017 miilaadiga kuna beegan 23 bisha Ramadaan sanadka 1438 ee hijriyada. waxaad ku soo dhawaataan warka saacadlaha ahaa ee BSS TV oo ah telefishin ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya. Boortaqiiska kayn ku taala magaalada Bodrogo Grande ee dalka Boortaqiiska ayaa qabsaday dab aad u baaxad weyn oo khasaaro badan soo gaarsiiyay dadka magaaladaasi degan. wararka ayaa ku soo waramaya in tirada ku dhimatay dabkaasi ay gaarayaan 62 ruux ayadoona ay ku dhaawacmeen tiro lagu qiyaasay 50 ruux. daminta dabkaasi ayaa waxaa si aad ah uga qayb qaadanaya dabdamiska waddankaasi ee Boortaqiiska, waxaana uu sheegay duqa magaalada uu dabka ka kacay in dabka uu yahay dab aad u balaaran oo kooxda dabdamiska kaliya aysan waxba ka qaban karin. sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalkaasi ee Boortaqiiska ayaa booqday magaalada uu dabka ka kacay, waxaana aan si sax loo xaqiijin karin waxyaabaha sababay dabkaasi. Liibiya wararka ka imaanaya dalka Liibiya ayaa sheegaya in diyaarado ay duqeeyeen magaalada Benghazi. diyaaradahaasi ayaa beegsanayay saldhigyada magaaladaasi ku yaala. sidoo kale wararka qaar ayaa sheegaya in diyaaradahaasi ay yihiin diyaarado laga leeyahay dalalka Masar iyo Imaaraadka. waxaa ilaa iyo hadda duqeyntaasi aan war ka soo saarin dowladaha lagu eedeeyay in diyaaradahooda duqeeyeen magaaladaasi Benghazi. Turkiga madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa sheegay mar uu ka khudbeynayay magaalada Istanbul in furaha lagu xallin lahaa dhibaatada ka taagan dalalka Khaliijka uu hayo boqorka dalka Sacuudi Carabiya boqor Salman bin Abdul Aziz. Erdogan ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in uu doonayo in si dhaqsi ah ay wax uga qabtaan khilaafka ka dhex taagan wadamada Khaliijka iyo Qatar. madaxweynaha dalka Turkiga ayaa hadalkiisa ka mid ahaa in aysan habboonayn in wadan muslim ah sidaasi oo kale loo jaro. waxa uuna hadalkiisa raaciyay in ay isku dayayaan in ay khilaafkaasi xalliyaan ka hor inta aynan dhammaanin bisha Ramadaan. boqortooyada dalka Sacuudi Carabiya wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Tishawush Oglo ayaa booqasho ku tagay dalka Sacuudi Carabiya asigoo halkaas kula kulmay boqorka dalka Sacuudi Carabiya boqor Salman bin Abdul Aziz Al Saud. booqashadan ee wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ku tagay dalka Sacuudi Carabiya ayaa imaanaya socdaal uu ku mareeyay wadamada Qatar iyo Sacuudiga. waxa ayna wararku sheegayaan in wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga booqashadiisa salka ku hayso khilaafaadka ka dhex taagan wadamada Khaliijka iyo dowladda Qatar. sidoo kale Tishawush Oglo ayaa sheegay in boqor Salman uu u gudbiyay fariin uu soo dhiibay madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan. fariintaas oo lagu sheegay in ay ahayd sidii uu boqor Salman bin Abdul Aziz Al Saud kaalin uga qaadan lahaa xallinta khilaafaadka ka dhex taagan Qatar iyo wadamada Khaliijka. Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar ayaa sheegay mar uu waraysi siinayay telefishinka Qatar in Khaliijka ay xiriirka u jareen Qatar ayagoo aan wax daliil ah haysanin, asigoona sheegay inuusan garanaynin sababaha xiriirka loogu jaray dalkiisa. sidoo kale Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani hadalkiisa waxaa ka mid ahaa in aysan jirin wax dembi ah ama qaanuunka khilaafsan oo ay Qatar samaysay Khaliijkana aan ilaa iyo hadda haysanin daliil. hase yeeshee uu sheegay in sababaha xiriirka loogu jaray uu yahay tuhun aan daliil lahayn oo keliya iyo dana gaar ah ay leeyihiin qaar ka mid ah dowladaha Afrika.
daawadayaasha waxa ay aragtidooda ku aadan khilaafka ka dhex taagan Qatar iyo wadamada khaliijka ku soo dhiiban karaan baraha bulshada sida Facebooka, Twitterka iyo YouTube-ka. waxa halkaas inoogu ag warkii saacadlaha ahaa aad kala socoteen telefishinka BSS TV oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya. ciiduu dhaafana waxay kala socon kartaa barta aanu ku leenahay internetka oo ah www.bssomalia.tk.